عويسي wanaagsan kuna soo dhawaada xarunta wararka dunida ee BBC London wararkeena caawa waxa ugu waaweyn ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhimatay daadad ka dhashay roobabkii duufaanka Sagar 48 saacadood ee la soo dhaafay wararkii ugu dambeeyay ayaan idinka haynaa Muqdisho iyo Hargeysaba olole talaal oo la rabo in lagu hakiyo faafidda cudurka Ebola ayaa ka socda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo laanta afka Soomaaliga ee BBC-du waxay maanta bilaabaysaa tartan suugaaneedka gabdhaha dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed waa tartan sanadkii hore soo bilowday gabadhii ku guuleysatay sanadkii tagay ayaanu waraysi idinka haynaa roobab xoog leh oo 48 saacadood ee la soo dhaafay ka daayay magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa sababay dhimashada inta la xaqiijiyay 6 qof iyo burburka boqolaal guri gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariisow ayaa sheegay in roobabku ay geysteen khasaare u dhigma ilaa 5 milyan oo dollar dhibaatada ugu badan ee roobabka ayaa ku dhacday boqolaalka kun ee dadka gudaha ku barakacay oo aan haysan hooy wanaagsan oo ay ka gali karaan roobabka wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad ayaa faahfaahin inoo haya roobka oo saacado badan socday isla markaana dhaliyay daadad waxa uu saameyn ku yeeshay gabi ahaanba nolosha ee magaalada Muqdisho waxa daadku uu galay guryaha dadka meelaha hoose degan degmooyinka inta ugu badan magaalada Muqdisho dawladda hoose howlwadeena ka socda ayaa ilaa habeenkii uu roobka bilowday waxa isku dayayeen in ay dadka ka soo saaraan guryaha si markaas ay u geeyaan meelo xarumaha degmooyinka ay ka mid yihiin iyo iskuulo si dadka halka loogu hayo dawladda dhexe iyo qaramada midoobay saraakiil ka socday ayaa arinkan isla shalayba ka shiray waxaana ay soo jeediyeen inay u baahan yihiin lacag gaaraysa ilaa 80 milyan oo dollar si wax looga qabto fatahaadaha bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya iminka ku dhufanaya lacagtaas waxa ay dheeraad ka tahay lacag ay qaramada midoobay horay u codsatay in abaaraha wax looga qabto dhanka kalena roobab dabaylo wata oo 48 saacadood ugu dambeeyay ka daayay meelo ka mid ah xeebaha Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa geystay khasaare dhimasho dad iyo xoolaba ah burbur guryaha ah faahfaahinta wararkaasi waxa inoo haya wariyaha BBC-da ee magaalada Hargeysa Sidiiq Maxamed Burmad gobolada Sanaag Saaxil Awdal iyo Salal ayaa kamid ah goobaha duufaantu ay sida weyn ay wax u waxyeelaysay dad badan ayaa ku dhintay dawladuna waxay sheegtay tirada dadkaasi inay gaadhayso ilaa 720 dhimasho ah taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland ayaa ii sheegay isaguna mar khadka telefoonka kula hadlayay in dhimashadu ay intaa aad uga badan karto maadaama ay suuragal tahay in dad badan ay ku go'doosan yihiin meelo aan la ogeyn jidadkuna ay xiran yihiin waxana sidoo kale ay leysay duufaantan xoolo aad u tiro badan darawal aan khadka telefoonka kula hadlay oo ka yimi magaalada Saylac ayaa isaguna ii sheegay intii uu Boorama ku soo socday inuu arkayay dad barakacayaalaha oo aan gurmad helin oo qaarkood buuraha ay saaran yihiin oo u qeylaya in la badbaadiyo khasaaraha duufaantan ay soo gaarsiisay bulshada waxa kamid ah khadka oo ka go'naa xitaa magaalada Hargeysa oo ilaa xalay ilaa shalay khadku uu ka go'naa balse galabta uu soo noqday iyadoo badina la sheegayo in ay galabta degan tahay faahfaahin dheeraad oo ku saabsan warbixinahan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Somali adigoo ka galaya moobilkaaga olole talaal oo diiradda lagu saarayo shaqaalaha caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa bilowmay maanta si loo xakameeyo faafidda cudurkan dilaaga ah ee Ebola in ka badan 5,000 oo talaal ayaa la soo diray hay'adda caafimaadka adduunku waxa ay muujisay walaac in kastoo ay sheegtay in rajadu ay ka wanaagsan tahay sidii markii hore ahayd iyadoo cudurkaasi halkaasi 3 sano ka hor uu ka dilaacay
tani waa waxa ay xukuumadda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ay ku dadaalayso inay ka hortagto. Ilaa iyo hadda waxaa geeriyooday 25 qof kadib dilaacii cudurkan dilaaga ah ee Ebola, halka ay 50 kalena ay la daaladhacayaan cudurka. Waxaa bilowday olole caafimaad. Shaqaalaha caafimaadka ayaana ka mid ah 500 oo qof ee ugu horeysa ee la siinayo tallaal tijaabo ah, kaasoo ka bilowday magaaladii laga helay cudurka toddobaadkii tegay ee Mbandaka. waa wax laga warwaro in imika cudurkii Ebola uu ka dilaacay meelo magaalooyin dadku ku nool yihiin, laakiin nasiib wanaag doorkan waynu ka fiicannahay markaad eegto xagga diyaar garowga sanadkii 2014 waxaanan ku faraxsanahay inaan imika kuu sheego inagoo hadlayna in tallaalkii cudurkaas uu socdaba. madaxda Kongo ayaa sheegay inay u badan tahay in tirada dadka cudurka qaba ay kordhi doonto, balse in weli xaaladda la xakameyn karo. waxaan filaynaa in tirada bukaanada ay korodho 3 toddobaad ee soo socota, kadibna waxaan rajaynaynaa inay hoos u dhacdo, maxaa yeelay waxaan qaadnay dhammaan tallaabooyinka lagu xakamayn karo cudurkan. Mbandaka waa magaalo leh dekad kuna taalla webiga Kongo, taasoo dhalisay walwal ah in cudurku uu si fudud ugu faafi karo magaalooyinka waaweyn sida Kinshasa. Dadka ku nool Kinshasa ayaa lagu dhiirigeliyey inay ku dadaalaan ka hortagidda cudurka oo ay iska ilaaliyaan xiriirka jirka. dadka waa inay kor iska salaamaan oo aysan istaaban ama ay xusulka isku taabtaan. sidoo kale shaqaalaha aeroboortka magaalada ayaa hubinaya heerkulka rakaabka ka soo degaya diyaaradaha. inkastoo hay-adda caafimaadka adduunka aysan ku dhawaaqin inay tahay xaalad degdeg ah oo caalami, dadaallo badan oo ku aadan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka ayaa soconaya si aysan u dhicin musiibadii Ebola ee galbeedka Afrika, taasoo ay u dhinteen in ka badan 11,000 oo qof. bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. khubarada caafimaadka ee dalka Hindiya ayaa bilaabay baadhitaan kadib markii uu halkaas ka dilaacay cudur fayrusa oo aan inta badan la arag isla markaana halisa. meesha cudurka lagu arkay waa koonfurta gobolka Kerala, waxaana loo maleynayaa in cudurkaasi dhibaah ka soo unkamo khudaarta, waxaanu ku fidaa marka dadku kulmaan isagoo ah cudur dilaaya. 3 qof oo isku qoysa ayaa geeriyooday kadib markii cudurku haleelay, waxaana la baadhaya imika 25 muunadood oo laga soo qaaday dad kale. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay soo rogi doonaan oo ay ku soo rogi doonaan dalka Iiraan cunqabatayntii ugu weyneed ee abid dal lagu soo rogo kadib markii madaxweyne Trump ka baxay heshiiskii nuclearka ee Iiraan. isagoo jeedinaya khudbad siyaasadeed oo Iiraan ku saabsan ayaa uu halkaasi ku soo bandhigay 12 qodob oo ay tahay inay Iiraan fuliso, kuwaasoo ay ka mid yihiin inay ciidamadooda kala baxaan Syria iyo Yemen. wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa baadhaysa bal inay FBI-du basaastay waqtigii ololaha doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee madaxweyne Trump uu ololeynayay, waxaana ay si sharci aan waafaqsaneyn loogu eedeeyey inay basaas halkaasi u dirsadeen, sida uu sheegay madaxweyne Trump oo Twitterkiisa qoraalkaasi ku soo bandhigay. waxaana uu codsaday bal in la eego in Obama amar ku bixiyey iyo in kale. saxaafadda Mareykanka ayaa qortay inay FBI-du basaas ugu dhex jiray ololaha Trump. iyadoo dhaqaaluhu si xawliyo hoos ugu dhacayo isla markaana codbixinta caalamku cambaareeyey kuna tilmaameen mid ku shubasho iyo khiyaamo ku dhisan, ayaa mar kale uu xukunka ku soo noqday madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro, waxaana loo cumaamaday 6 sannadood oo kale isagoo ku guulaystay 3 meelood oo 2 meelood codka la qaaday, laakiinse waxaa codeeyay 46% qura dadka xaqa u leh inay codeeyaan. mucaaradka ayaa guud ahaanba qaatacay doorashadani. Maduro ayaa sheegay inuu ka guulaystay isagu imberaaliyadda. Mareykankuna waxa ay cambaareen, waxa ay ugu yeedheen doorashada ciyaarta ah, iyagoo ku hanjabay in cunaqabatayn hor leh soo rogayaan. Qaalib Baaruud ayaa warbixintan inoo haya. Maduro ayaa guulaystay, waana sidii la filayay. waxa uu uga mahadnaqay taageerayaashiisa sida ay awoodda ugu dhiibeen 6 sano oo kale. waxa uuna ku tilmaamay maalin taariikhi ah. guushiisu waxay ahayd mid la saadaalin karo, waayo mucaaradku hore ayay isu dhiibeen. ma aqoonsanin nidaamkan doorashada in wax saxa uu yahay, sababtoo ah wax doorasho ah nooma dhicin. doorasho cusubi waa in lagu qabtaa Venezuela.
guud ahaan dalkoo dhan axaddii xarumaha codbixinta badankoodu waxay ahaayeen kuwo cagtu ku yar tahay hugo chavez waa ninkii soo bilaabay kacaanka hantiwadaagga ah ee mandorow hadda u guntaday inuu hoggaamiyo si kastaba ha ahaatee nicholas maduro weli waxa uu haystaa taageero maduro waxa uu damaanad qaaday inuu ilaaliyo bulshadayada waxaan u codaynayaa difaaca dalkayga sbain iyo maraykanku waxba ugama jiraan arrimaha gudaha ee dalkayaga tirinta codadka waxaa ku caddaaday in dad badani ay dhabarka u jeediyeen doorashada qiyaastii 46% ayaa ka qayb qaatay codbixinta qaybo ka mida Caracas safafka dukaamada hilibka ayaa ka dheeraa kuwa codbixinta ma ku raacsani doorashadan wax isbeddel ahna ma keenayso waxaa dhici doona oo keli ah in nolosha Venezuela ay halkaasi ka sii adkaato magaalooyinka waaweyn iyo goobaha mucaaradkana dadku waxay u jeesteen dhanka Ilaahay oo ay jawaabo ka dhowrayaan dadka Venezuela afduub ayay ku jiraan musharaxiintu awood uma laha inay soo istaagaan dadkuna awood uma laha inay wax doortaan dadku xitaa ma awoodaan inay jidadka mudaharaadyo ka dhigaan guusha kadib mudane Maduro waxa uu wada hadal ugu baaqay xisbiyada kale hase yeeshee dhaqaaluhu wuu sii dumayaa cadaadiska caalamkuna wuu sii kordhayaa mustaqbalkuna ma noqon doono mid u sahlan Maduro iyo malaayiin reer Venezuela ah oo xaalad adag iyo dhaqaale xumo la soo daristay caawiyo ciyaarahana Andres Iniesta ayaa soo gabagabeeyay geedi socodkiisii ciyaaraha cajiibka ahaa ee uu Barcelona kula joogay waxaanu ku wadacay guusha ay kooxdiisu ka guuleysatay xalay Real Sociedad ciyaartooygan 34 jirka ah ayaa ka tagay horyaalka Isbaanishka ee La Liga isagoo 22 koob qaaday 16 sanadood ee uu safnaa laanta afka Soomaaliga ee BBC-du waxa ay maanta bilowday tartan suugaaneedka gabdhaha dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed kaasi oo lagu dhiirigelinayo inay ku soo bandhigaan hibada alla siiyay tartanka waxa la bilaabay sanadkii hore waxaana xiligaasi ku guuleysatay Deeqan Nuuxiyoonis oo ku nool magaalada Hargeysa waxa sanadkii labaad ee xiriir ah ee la qabto tartankan oo lagu magacaabo tartanka gabayga ee dumarka da'da yar ee BBC News Somali 2018 waxaan u furan yahay haweenka da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 35 jirka haddaba Deeqa ayaa nooga warantay waxa iska bedelay nolosheeda tan iyo markii ay guusha gaadhay intii guushaydii ama xilligii aan ku guuleystay kaalinta koowaad ka dambeysay waxaan oran karaa yacnihii waxay ii noqotay jid i tusinaya inaan meelo badan oo kala gaari karo caqabadaha jira ee hadda ka hor ama xilligii guushayda ka horeeyay isla waxaa ka mid ahaa maxaan ku raadayay qodobka odhanaya in ay dadku ama dhalinyarta ama asxaabteeda ama dadka facayga intooda badan ay u arkaan yacni waxaan horumar lahayn waxaan faa'iido lahayn wax laga soo gudbay hadda ama guushaydii ka bacdi waxa ay u arkeen in uu yahay yacni in uu yahay wax ummadi leedahay ummadi ay maxaan ku raadayay ilaashanayso in uu yahay wax weli sii haysta taageero iyo jiritaan aniga iyo sanad ka hor marka aan qiimeeyo runtii waxaan odhan karaa wax weyn baa macnaha iska bedela sugaanteedii waxa ay noqotay yacni waxaan sameeyey isku day tartanku ka soo kordhiyey horta maasha allah marka hore yacni wuxuu iskaaga baray ummad badan wuxuu iskaaga baray dad badan oo sugaanta jecel oo meelo kala duwan jooga oo Soomaaliya yacni tartanku muhiimadda uu aniga ii lahaa iyo muhiimadda gabdhaha Soomaaliyeed u lahaaba waan dareemay waana mid saameyn iyo maxaan ku raadayay iyo dhiirigelinba noo noqotay ana khaasatan ii ah dumarka Soomaalida isku daygooda ayaa ku yaraa awal hore gabayga oo ah boqorka maansada waxaan rajaynayaa saan hore u soo sheegay oo yacni yoolkayga koowaad ama bartilmaameedkayga koowaad uu yahay aniinan afkeena horumariyo afafka dunida loo yaqaano yacni afka iskala dunidan ama qaarkood loo yaqaano afka kaliya la isku fahmo ama afka koowaad la isku fahmo dad baa horumarsaday saas la ajiyay afkeena inaan horumarin karno inta uu maanta dunida ka taagan yahay in ka sii horumarsan aan gaarsiiyo oo dhamaanteen aan gaarsiino hobigayga iyo hiigayga aan ka leeyahay suugaanta iyo guud ahaan afka suugaanta kaliya maaha intaas baan ku koobi karaa
intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii caawa waa ku mahadsantiin daawashadiinna waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo